baaska qaybta koobaad ee ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Badroolka ayaa sameysay Zakariya Bootaan ayaa kubadda la gaarsiiyay markan soo tuuray kubadda meel fiican gool Badroolka ayaa hoggaan ku qabatay Cabdiraxmaan Atax ayaa shabaqa gaaray xidigii hore ee kooxda Geeska Afrika lambarka 10aad ee kooxda Badroolka gool iyo eber kooxdana jawaal lagu bilaabay goolkaasi waxaa caawiyay oo meel dheer ka soo tuuray kabtanka kooxda Badroolka Maxamed Omar Waneel gool ayaa kooxda Abdulqaadir penalty rigoore kooxda kubadda cagta Rajo rigoore ayaa loo dhigay kooxda Rajo Badroolka ayaa laga dhigay penalty ama rigoore Rajo ayaa helaysa miyay barbarayn karaan miyay ciyaartu garba siman ka dhigi karaan waan eegi doonaa penalty ama rigoore ayaa lagu abaalmariyay ciyaartooyda kooxda Rajo Ismaaciil ayaa u taagan rigoordan Ismaaciil isaga ayaa laga sugayaa miyaa laga seef garan doonaa Ismaaciil 1-1 goolkii barbardhac ay dhaliyeen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Rajo kadib penalty ama rigoore lagu abaalmariyay ciidanka lambarka 9aad ee kooxda Rajo Ismaaciil Cabdulqaadir Xuseen faato ma isan noqon kona penalty ama rigoore gacanta ay kaga dhacday kubaddii uu faatuuray calan wadaha ayaa sansixiyay waa penalty ama rigoore kooxda kubadda cagta ee Badroolka ayaa helaysa kubaddu faatuuray difaaca kooxda fuad waa qasaariyay goolku waa uu kormariyay fuad kubaddaasi waa uu qasaariyay xirka ayuu ku tolay والله صوت ورا ولي هيا جول يدلين عيارتودا كوخدا كوبدا عagta ee Rajo Ismaaciil ayaa shabaqa gaaray laba gool iyo gool ay ciyaartu noqotay Ismaaciil Xuseen goolkiisa labaad ee kulankan kubad geeska laga keenay ciidanka lambarka 23aad Cabdi Naasir difaaca soo gidgidiyay banaanka soo dhigay Ismaaciil Cabdulqaadir Xuseen ayaa kubaddaasi dhameystiray Atax waa uu soo tuuray toto Fuad ayaa shabaqa gaaray kubad koona ahayd oo gooska laga keenay Fuad ayaa ciyaarta barbareeyay laba gool ee ciyaartu noqotay koona la soo tuuray ayuu dhameystiray laba gool laakiin kubadda ayaa ka dheeraatay goolka Badroolka ayaa kubadda laga soo bilaabayaa daqiiqadaha dheeriga ayaa gabagaba ku sii dhow Nuuraane ugu dambeyntii ciyaartu way soo ilaatay laba gool ay ku heshiyeen Badroolka iyo waliba kooxda Rajo horyaalka heerka labaad ee Serbia 20 tooska waan eegtaa nabadgelyo